السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوالة استي سمتيج الدواء أصحابي عشر كلمات وحكوسة بسنية هاي قابك أوسع كرته مقالدة إسورانتا مولكا كلمة أديقو عن استعمالين وح أبليكيشن then waxaad galaysaa markii ugu horeysa gallery-ga markii aad gallery ku dhufatid waxaad ka sii tagaysaa settings-kaas meesha saddex dhibcood ku sawiran tahay markii aad ku dhufatid saddex dhibcood waxaad ka sii dooranaysaa meesha ay ku qoran tahay recycle bin kadib waxaad ku sii dhufanaysaa turn off recycle bin hadaba ujeedaan hadda ayuu noo bilaabay shaqadii hadaba hadda waxaan isku dayaynaa in aanu delete aan dhahno sawiraantan iyo muuqaaladan xaggan ka aragtaan kadibna delete baa dhahaynaa markaad tiraahdo wuxuu ku dhahayaa move recycle bin yes markaad intaad tiraahdo waxaad ka helaysaa recycle bin-ka hadaba haddii aan raadino waxaan ka helaynaa recycle bin-ka settings-ka inta ku dhufatid recycle bin kadib waa kuwa fiisaashii iyo sawiraantii aad dhiliday backup waa soo dhigi kartaa wixii aad uga baahatid wixii aad uga baahna delete baa sii dhahaysaaba hadaba muuqaaladii iyo sawiraantii waxaan soo dhahaynaa backup markii aanu backup soo dhahno dib ayay u soo noqonayaan gallery-gooda hadaba asxaabi ujeedaan in aanu soo celinay sawiraantii aanu delete garaynay taas halkaas ku eg haddii uusan moolkaaga uusan lahayn recycle bin waxaanu ku sharaxaynaa recycle bin application isagoo ah waa la soo degaysaa Play Store-ka aad ka helaysaa waxa ku qoran recycle bin ama waxaad ka helaysaa description-ka muuqaalkan hadaba markii aan soo furno recycle bin sida tan ayuu kusoo furmayaa markii uu kusoo furmo kadib haddii aad doonaysid inaad delete iyo haddii aad doonaysid inaad soo celisid backup soo dhaadid waxaad ku dhufanaysaa meeshaas buluuga ah haddii aad backup soo dhaadsidna waxaad ku dhufanaysaa balaska kadib sidaas ayuu kusoo noqonayaa sawirkii ama muuqaalkii aad dhiliday hadaba asxaabi intaas ayuu noogu eegay casharkeena maanta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.